قرونا هذا وحكفر من شرمها واسبنار أقول سوى دارسية وإقبنا يسوع هاي اللي رهرتك عدة أي روانا ويكون سنتين حنك ورقة إن تذكر قيب قلاية تدعو هذا إن أيوة مسؤولية responsibility إن وتجاي ما هي نور بابا شخصي أنتي سيلعسوم أنا قاعد قدوم كايني برلمان والوع عسومي لكن أسوء مسؤوليتي أو قدومي برلمان ما وما قيب قلاية وقيب قلاية شخصي محمد مرسول عبد الرحمن أو قدومي برلمان لكن الشركة جنتيسة أي دولة أي قرشة اسمها دولة سوماليا waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay golo wasiiro waxay leedahay muxuu ahay baarlamaan waxay leedahay hay'ado garsoor midna muxuu ahay ma ka qayb galahayaan marka waa seminar aqoon isweydaarsi oo loogu talagalay in muxuu ahay afkaar isku dhaafsado taasna waxaa qabta hay'adaha sida hadda hay'adan qabatay heritage iyo hay'ado kale oo badan ayaa qabto maalin walba aniga wad wigi hadda seminar noogu socday hotelka Xayaa marka shirka waa shir saas oo kala garow shir hadda oo lagu qabto shir dawladeed oo ay dawladda fangareynayso dawladda ay responsibility gareynayso ma inta badan xubnaha mucaaradka shirkaas lagu casuumay waxaan qayb ka ah gudoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya marka shirkaasi طبعا سيدا الله سعودتا ذنك معارضك ولاع بدنا هاي حلقة إن ماشي لو سوا قرآن صار حوا قلبي وذا لو سوا تجيب وأي واحد بدن كسوا فهمان بركي ولاع بدنا هاي أو كهاي دينا عالدور الشذا وحانه والله وأن وذا أجنهاي وحل الدورنا وحلوان أنا حلوان أنا مشرحان هاي هذا حلك هذا برلمان كان هاي محو هاي مركو يقدر ما هذا مشرح أنا حلك يندونته هاي وحن دونته هاي دورش هالقو في هالعض معها ودورش دي أيضا البدين معارض دورش هذا تبنيت أنا أول حنشوفين أنصحني دورش هالقو في هالعض تن أي قاعد البدي واتي مقليسين مدحوينا شركة سمريب لو قبت لو سمريب مدحوينها العدادك لو soo saaray mar labaad xamar hada la sii dawiyay 300 xaq lagu soo ansixiyay iyo doorashada oo sharcigi oo doorashooyinka lagu soo laalay xamar markii leeyma hadana 300 ay hadana warka keeneen 100 heshiiskii asaga ay hadda lagu qorshaqeeyo ayaa guddiga doorashooyinka ay ku qorshaqeynayeen marka anigu uma arko waxa waay murugada iyo dhafarka ka muuqdan maxaafadka waxaan u arkaa walaac doorashada ka hayo waxaan kula tirin lahaa inay waltira akhristaan inay macoo quraanka ay tawagalaan inay xilka doontaan ay iska dhaafaan walaac iyo hadba meel heritage hadda waa hay'ad samfal oo muxuu ahay fududeynaysa inay doodaan oo ay neefsadaan oo ay dadkii ay munaashaqaad sameeyaan taas qof hadda dadka qaar oo hadda xilka ay soo qabteen markii dadka qaar la fiiriyo waxaan malaynayaa inay capability weynaayeen in qalbigooda lagu soo dejiyo ama lagu soo muxuu ahay wax lagu soo fahansiyo marka laakiin qofkii ka qayb galay cidii lagu casuumay ayaa muxuu ahay ka najixi doonta awaanku shaqo labaad marka awaankaasi marka maxaa loo kaasninkii qoriya oo dawladdeena ma ogtahay inay ku meel gaarka ka baxday 2012 dawlad rasmi ahaanahay dawlad ku meel gaar manhi hadii uu cidii qortay ayaa og anigu
runtii garowe waa magaalo fiican waa magaalo shacab aad iyo aad u wanaagsan ay degan yihiin laakiin hadda inay wax weyn ka soo bixi karaan oo ma haysto waayo cidda hadda boorka noocaas oo kale muxuu ahaa qortay ayaa ka talaysa marka waxaan qabaa aniga nimankii shirkii hadda September 17 madaxweyne Dani oo kale dadkii wax ka saxiixay oo kamid ah heshiiskiisa asaga saxiixay ilaa ay hadda lagu kari laayahay isaga Axmed Madow marka wax weyn aniga hadda inay ka faa'iideeyeen mulaynayo laakiin ha isku soo wareystaano hana isku soo qanciyaano waa wax fiican dawlad rasmi ah ayaan nahay garowna hadda waxa ka furmay shir maaha ee waa seminar